Bismillahirrahmanirrahim. Kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halka aad naga daawanaysaan waa channelka Xogta Media. Waxaad ku soo dhawaataan warbixin gaar ah oo aan diiradda ku saari doono cidda mas'uulka ka ah xilligan la joogo amniga caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Haddaba ciddaasi waa tuma halkan ayaa daawadayaal idinkugu soo gudbi doona warbixintan ayaana idinkugu falaqeyn doona xildhibaankii ugu horeeyayna maanta waxaa lagu doortay magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland. falaqan ayaa daawadayaal idinkaga eenaa halkan ayaana idinkula wadaagi doonaa hayeeshee inta aanan guda gelin waxaan daawaday kaa dalbanaya oon kaa codsanayana muuqaalkan like saarto la wadaagta asxaabtaada adigoo subscribe inoo saaraya channelka furan ee gambalaalka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawaday muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiya commentiga aragtidaada inagula wadaag markaana daawaday waxaad ku soo dhawaataa warbixinteena yaa ka mas'uula xilligan la joogo amniga caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Maamulka gobolka Banaadir oo ay gadaal ka riixayso kooxda sharci darrada ku fadhisa Villa Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyay muran geliyay mas'uuliyadda amniga ee ay leedahay wasaaradda amniga xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya. Cali Yare Cali oo ku magacaaban gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir ahna nin si toos ah ugu xiran farmaajo ayaa carabka ku dhuftay in amniga Muqdisho uu hoos tago gobolka Banaadir isla markaana aan waxba laga weydiinaynin wasaaradda amniga dalka. Cali Yare ayaa marka laga yimaado in uu u adeegayo farmaajo misana u muuqday nin la xifaaltamayo wasiirka amniga dalka Cabdullaahi Maxamed Nuur. haddaba yaa iskale mas'uuliyadda amniga caasimadda xubno ka tirsanaa sirdoonkii hore ee Soomaaliya iyo khubarada ka faalooda arrimaha amniga ayaa tilmaamaya in amnigu uu yahay mas'uuliyad wadareed ee cid walba dhinac ka leedahay. waxayse hoosta ka xariiqeen in xilligan amniga dalka lagula xisaabtamayo wasaaradda amniga xukuumadda xilgaarsiinta gobolka Banaadir ayay ku tilmaameen laan ka mid ah waaxaha heer gobol ee loo baahan yahay in wasaaradda ay kala shaqeeyaan amniga maadaama wasaaradda uu hoos yimaado guud ahaan arrimaha ku qotoma amniga dalka taas oo ay gobolka Banaadir qayb ka tahay. waxay kaloo sheegayaan khubaradu in gobolka Banaadir aanu matalaad ku lahayn baarlamaanka dalka taasina ay keenayso in amnigooda uu si toos ah u hoos tago wasaaradda amniga taas oo ka mid ah hay'adaha dowladda ee caasimadda ku shaqeeya. farmaajo ayay tibaaxeen nin dabada ka riixaya qorshahan uu gobolka Banaadir ku sheeganayo amniga Muqdisho maadaama uu ka dhacay xukunkiisa. waa nin arrintan u arkaya mid uu ku dagaalami karo wuxuuna adeegsanayaa Cali Yare Cali oo ah shakhsi hanyar isla markaana u dulaysan meelmarinta go'aanada kaligii taliyaha. hoggaanka waqtigiisu dhammaaday ma lahan awood uu ku farageliyo amniga dalka waxaana meesha ka baxday darajadiisa ahayd taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida taas oo la dhacday muddaxileedkiisii dhammaaday sanad ka hor. xukunkiisa sharciga ahaa ee dhammaaday waa mid awood iminka siinaya xukuumadda xilgaarsiinta taas oo ay wasaaradda amniga qayb weyn ka tahay wuxuuna kal hore sidii la ogaa amniga dalka ku wareejiyay ra'iisul wasaare Roble inkasta oo uu weli duceynayo. markaana daawadayaal haddaynu eegno xildhibaankii ugu horeeyay ayaa maanta lagu doortay magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland. magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal waxaa maanta ka bilaabatay doorashada kuraas ka mid ah xubnaha golaha shacabka gaar ahaan xubnaha ka imaanaya Puntland iyada oo goordhow la doortay xildhibaankii ugu horeeyay. Cabdi Ibraahim Warsame ayaa ku guuleystay doorashada kursiga koowaad ee Hoob 196 oo la qabtay doorashadiisa wuxuuna la tartamay musharax uu isagu keensaday. guusha Cabdi Ibraahim ayaa ahayd mid horey loo sii ogaa maadaama si gaar ah loogu xiray kursigan oo ka mid ah kuraasta maanta la qorsheeyay in la qabto doorashadooda. xildhibaan Cabdi Warsame ayaa haatan ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda maamulka Puntland wuxuuna ka mid yahay xubnaha aadka ugu dhow Saciidani. sidoo kale xubnaha la sii ogyahay in ay soo baxayaan waxaa ka mid ah taliye ku-xigeenkii hore ee booliiska Soomaaliya Cabdullaahi Xasan Roble oo ah wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada Puntland. Cali Yuusuf Cali Xoosh oo ah xildhibaan heer federaal ah sidoo kalena xilal kala duwan ka soo qabtay Puntland iyo Cabdullaahi Bidhaan Warsame oo ah xildhibaan iyo wasiir heer federaal ah. guud ahaan daawadayaal waa inaginta warbixintii aad kala socoteen channelka Xogta Media aan kulana YouTube-ka muuqaalkan like inoo sar subscribe inoo sar channelka Fura Gambalaalka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino.
sidoo kale daawade muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiya commentiga aragtidaada inagula wadaag tan iyo warbixintan mid la mid ah inta dib isugu kulmi